muqdisho markaan soo aadayay waxay ahayd meel aan weligay iman horto Soomaaliya oo dhanba weligay hal mar baa imid wax ka wanaagsan hela dhihi karaa sababtoo ah waxaa filayo inaa imaan doono magaalo markaas u baxid qarax la kulmaysid markaas u baxid xabasku u dhacayso oo nolol lagu nool yahay yani nolol. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kusoo dhow channelkeen Maxamed Bakar Official. maanta waxaan rabnaa barnaamij cusub oo aan bilownay dhawaan. waxaa barnaamijkeena ku casuuman ugaas Milyuun oo ah fashioniste modeliste sidoo kale designer. ugaas Milyuun kusoo dhow channelkeena Maxamed Bakar Official gaar ahaan barnaamijkeena Bakar Podcast. Bakar waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan kusoo muuqdo podcastii Maxamed Bakar uu leeyahay. aad iyo aad ugaas Milyuun waxaa ka mid tahay gabdhaha hal abuurada leh oo creativity leh oo ka soo hayaamay meeshii wacneed oo la dhihi jiray Dadaab. horta intaan gelin sheekadaas aan u galgin horta waa kuma ugaas Milyuun. ugaas Milyuun waa qofka u jeedid waay laakiin haddii qof aan isku qeexo dadka ay aqoonin magacayga sida caadiga ah Milyuun Cabdiyaal lahaa laakiin ugaaso naanays waay. waa gabadh fashion designer ah model inay noqoto jecel model ah inay noqoto jecel ma laakiin waxaa jeclaa oo inaan masraxyada caalamka ee weyn aan ka soo muuqdo haduu Ilaahay yiraahdo wakaasa ugaas qofka sooyaan. okay ugaas aad u maasan tahay sidaan uga aqbashay inaa ka soo muuqato page-keena mar labaad iyo mar saddexaad. ugaas taariikhdaada nololeed caruurnimadii waayahaagii Dadaab maxaad ka xasuusataa? والله بكرو داداب waxyaabo badan ay xasuuso badan ay nagu leedahay siba aniga xasuuso badan ay ugu leedahay aniga ugaas ahaan waxa ku dhashay xerada qaxootiga xagar dheer laakiin waxa ku soo aqleystay oo anoo jooga arkay xerada qaxootiga ifo waxa la dhahaa waa xerooyinka qaxootiga saddexda xerada ugu weyn waa hada xer cajiib waa malaga sheekeeyo waxyaabo badan xagaas dugsiga ku soo qaatay dugsiga quraanka sidoo kale iskuulkayga hoose qayb kamid ah xagaas ku soo dhigtay iskuul Cabdicasiis ilaha soo dhigtay Cabdicasiis primary school Cabdicasiis inta deegaanka ku salaami doonaa soo dhigtay sidoo kale qaybii dambana xagar dheer ku dhigtay ku dhameystirtay. okay ka soo nolosha caruurnimo Dadaab waxbarasho ku soo qaadatay waa ku soo nooleed sidee ahayd nolosha Dadaab dadka aan aqoonin bal ugu sheekay. wallahi nolosha Dadaab waxa adigu ku soo qaadatay inkastoo ay dambe u hayaanay dhankan deegaanka oo gaarsa u gurnay laakiin qangaarkii ilaa 20 sano inta ka gaaray ilaa maanta soo aqristay qaxootiga joogay labada xero waa joogay xaardheer waa joogay ifana waa joogay xaardheer waxa uu wareegay oo maadaama hooyada ay deganid anigana gabar ay kurisa ahaayo ay haysatay reer ifaan hay waagii hore ifa wallahi noloshii ciyaalnimada markii la dhaho nolol aad oo qaxootiga aad ugu fiican ay ahayd markii adee aan weynaanay soo qaangaarnay oo fursado badan in iskuul la dhameeyo in shaqooyin la raadiyo ee noqotayna nolol adag ay noqotay laakiin ciyaalnimadii markii loo nolol la isku faraxsan yahay waa wareeg maanta dhan soo maqnaanay waa soo ciyaare waa soo laabanay tuubada la taga galabadii horta tuubada la dhaamin jiray galabtii biyaha la dhaamin jiray tuubada la isugu imaanaya kii kubadki imaaday kii gabar guriga ka soo baxday wixii dhan waxa la isugu imaanaya tuubadii marka meeshaas waxay aan jirtay meesha aniga sheekad u doonta ay kursaa ay bis xaafadda la joogi jiray marka waxa sameyn jiray hooshoo dhan inta qabta tuubada aad jir maanta dhan galabtii dhan tuubada xaadir ku anjirsaa sheekooyinka u dhageysto. okay oo xanti iyo magaalada iyo blogyada wax ka dhacay iyo maxaa dhacay aan isku imaan jiray sax nolosha cajiibeed waa u xiisay yaraanta wax la xiisayo mugtama kasoo wadan marka joogto dadka dhan waa is wada taqaaniin ma jirto qabiil hebel wax la yiraahdo dadka dhan walaalay ahaayeen marka walaahi xasuuso badan ay leedahay imaanshaha Muqdisho sanad kadib sanad ka hor aan dhahay sanad ka hor waxa imaatay magaalada Muqdisho magaalada ummadda Soomaaliyeed caasimada Soomaaliyeed filashadaada Muqdisho sidee ku lahayd adiga? wallahi horta Muqdisho markaan soo aadayay waxay ahayd meel aan weligay iman horta Soomaaliya oo dhanba weligay hal mar baa imid Kismaayo tagay meesha ugu horeysay marka la imaado Muqdisho markii ugu horeysay daa imaado haddana wallahi wixii ka filinayay wax ka wanaagsan hela dhihi karaa sababtoo ah waxaa filayo inaa imaan doono magaalo markaas u baxid qarax la kulmaysid markaas u baxid xabasku u dhacayso oo nolol lagu nool yahay yani nolol
maxaa la roobka markuu soo daadanaya waxbaa laga hoos gala soo maaha sidaasoo kale inay xabadaha iyo qaraxyada usoo daataan waxaa xasuustaa markaa dhadhaab joognay ama xerooyinka dhadhaab waxaana la dhihi jiray muqdisho ninka qofka markuu baxay salaadii waa dardaarmaa imaanshihiisa soo laabashihiisa alxamdulilah ilaahay soo nabad celiyu ku imaanaa marka dadkaan ogeen bal ugu sheekay ugu qeex sida ay muqdisho tahay horta markasta qofka bini'aadanka markuu subaxdii baxayna adkaar inuu akhristo wanaagsan tahay markuu imaadana dee alxamdulilah gurigiisa ugu soo laabta alxamdulilah waajib saaran wey laakiin markii loo eego maxaa dhihi jiray nolosha xagga Kenya ka jirta ee qaxootiga ama deegaanada kale ka jirta iyo aragtida ay ka qabaan in Soomaaliya la joogo qof ku noolaado Soomaaliya meel babacsan ka aaminsan yihiin dadka xagga jooga laakiin alxamdulilah waa la soo quracdaa waa la soo baxaa shaqooyin la soo wada aadaa maalin dhow qaraxa dhacay wala ani kama warqabin ilaa Facebook aan ka arkay maahan anoo muqdisho kama warqabin Facebook dad waxa arkaysaa qaraxa dhacayo dad Kenya jooga soo post garanay adiga magaalada joogtay ma maqlis qaraxas man ogid meel ka dhacay marka nolosha iska saas ah okay markaan ka hadalno caqabadaha hortaagan ama ku gadaaman dhalinyarada ku nool xerooyinka dhadhaab horta dhadhaab moogtahay waa xerada ugu weyn ee qaxooti lagu noolaado over that years lagu nool yahay dadkii meesha ku dhashay ayaa dadka la sii dhalaaya marka caqabadaha hortaagan dhalinyarada meeshaas ku nool hal ilaa wax noqotaan kar sababtoo adiga oo ku soo nooleed wallahi caqabada fara badan horta iska jira xagga nolosha markii la dhaho qofka dhalinyarada markuu yar yahay xerada qaxootiga ife u joogo ama dhagaxay u joogo ama xareer u joogo noloshaas markaas uu ku nool yahay caadi bay la tahay laakiin marka 16 sano soo gaartid 16 sano wixii ka dambeeya 16 sano waa xilliga iskoolka dhexe ka sii gudbisay iskoolka sare aadaysi markaas waxaa ku haminay iskoolka saragal iskoolka sare marka ka baxday shaqo hel haddana waxaa arkaysa dadkii adiga ka horeeyay ama qof adiga ka horeeyay oo high school dhameeyay haysto buundo fiican ama maxaa la jira natiijo fiican keenay B+ keenay waxaa arkaysa haddana qofkii oo yani lacag yar ku shaqeynaya lacag aan qofku u qalmanin buu ku shaqeynaya marka adigana taasaa ku sii niyajibinaysa ardayda qaar inay iskoolada ka haraan hadda waayadii dambe qaxootiga waayadii hore wax saayida loo waxbarashada loo xiiseyn jiray laakiin waayadii dambe waxay noqotay in ardaydii aysan si fiican wax u baranin sababahana waxaa isdhihi karaa kulley waa shaqo la'aantaas iyo qofkii wuxuu ku jiraa xeyndaab xiran uu ku jiraa meel u bixi kartid ma laha deegaankii ma aadi kartid waxaa loogu xujeynayaa sharcina leedahay in qaxootiga tahay Soomaaliya soo aada hadda dhahayd adiga qaxootiga lagu dhalay Soomaaliya xabada ka jir dhibaato ka jirta lagu dhahay dadkii deegaanna ma aha oo Kenyaan ma Kenya ma dhaxgelin Soomaaliya ma joogan oo yani xaaladii Soomaaliya lama haystaan xaaladii deegaanka lama haystaan caqabadaha xaggaas ka imaanayaan marka waxyaabaha ugu badan dhalinyarada caqabada ku ah waa shaqo la'aantaas iyo waxbarashada inay ka niyajabaan inay qaarkood dhoof ay ku haminayeen oo dhoofkii la waayo inta dhoof heshay يعني dadka Soomaali jooga markay xagga tagaan waxay u tagaan xeesdaan hora laga dhoofa hora laga dhoofiyo isdaan laakiin dhoofka ma oga inuu baqtiyaan siibiya waxaan marka muqdisho imaan amal wuxuu ku dhaayaan marka dhaada xirooyin dhaaba ka yimaade maxaa dhoofaysaa lagu dhaa marka in la dhoofa horta inuu baqtina siibiya dadku cadeey bal sideena lagu dhoofaa process-yada la maro adeer tuuliga dhoof ma rajeys marka meesha ku nool ma horta aan waliga niidida dhoof igama gelin oo dhoof inaan ku hamiyo ma dhoofin laakiin waxyaabaha jira waxay tahay anaga dadka qaxootiga oo waxaa ay nasiib u heleen inay process maraan aniga wada xareer degnad anay ifaan ku nool Soomaa kaarkanagi yaalay qaxootiga xareer dheer yaalay bal soo dhijiyay waxaana loo soo dhijiyay process inaa helnay kii kale nasiib ah helnay ku bixi karno and then processki dhaxda marka marno waa uu fail garoobay oo iska halaabay meeshas ayada haddana ilaahay meesha wax ka qoray ku tusinaya annaga waa joognaa walaashadii kaarka nuula jirtay curada hooyada ahayd fursadii bay heshay kaarkii dadka qangaarka gooni baa loo bixinaya markii processka wax markuu socdo qofka qangaarka iyo qofka single laga dhigaa ayada single bay u goostay kaarkeeda gooni waa ayadii dhooftay tagtay Mareykan 2009 Mareykan tagtay annagina waa ku joognaa isku kaar baynu ku jirnay okay adiga waliba hadda ma joogtid hadda wadankaaga joogtaa taas ka sakow dhalinyarada reer Dhadhaab ama reer qaxooti markaan dhahno markay ka soo tagaan xerooyinka Dhadhaab guriga hooyadood meesha ku nooleed ku soo wax bartay
magaalooyin kale ama wadanka markay kusoo laabtaan ama wadamo kale oo deriska ay aadaan fursadaha ay helaan aaday maxaa la u badan yihiin marka maxay kula tahay dadkaas inay fursadahaas camal ay abuuraan maxaa u sababa والله waxaa is dhihi karaa maadaama horta nolol adag ah ku soo kornay oo de qaxooti lagu soo koray ina wax iskool ina baratid laga yaabo familkii ku soo koriyeen inay xaalad adag ku soo koriyeen hooyada subaxdii bixi jirtay shaqeyn jirtay aabaha sidoo kale shaqeyn jiray qaarkood dadka inaysan aaba lahayn laga yaabo oo hooyo u la tacaalisinta badan hooyo korinaysay qofkii noloshaas lagu soo koriyay dana dadka labay kaliyin qof hamile oo yani meel u jooda wax u cad yihiin iyo qof hamileen ta qofka hamileen caadi uu iska qaxootigaas iska qanacsanaanay meesha iska joogaya kii kale oo fursad ku helay inuu baxana waa dadka soo muuqdaan inta badan yani dadka kartida leh ee ka soo xitaa dibadaha haday tagaan oo dadka isku soo sharxay inay xillibaano noqdaan inay wax noqdaan dadka arkay sidoo dhan waa dad qaxootiga soo wada maray hadda ilhaan cumar oo kale waxa maqlay رئيفة هذا المغلى ها مركز دتك واحد نقدان ودتك يعني حالتها هذا كله سوق كل مين هذا ما لازم نقص حكوا أركيس هذا لا وشقية ريد دابوا قفك هذا اسوري 60 قلت اسكمال كي ما تواس برني سنة كجبر هان سيدي أقول ديرتي إن قري هو إذا كصوتكتو أديكو رادينا إسبدل النورلات mid dhaqaale mid horumarneed intaba markaas aan dhaho aniga inaan ka soo tago horta aniga saa ku sheegay waayadii dambe gaarsa oo dadka inta badan aan hore gaarsa ay barteen in reer qaxootiga aysan ogeyn marka anoo gaars joogo inaan gaars ka soo baxo oo muqdisho imaado oo isbedel nololeed ay raadiyo waxay ahayd yani waxa aniga ka dhex arkay muqdisho waxyaabaha aniga igu dhex jira inaan xaggan kiir gelin karo maadaama fashion designer ahay oo inaan designer weyn aan noqdo aan rabo sidoo kale inaan model noqdo aan rabo sidoo kale tan jilaano waa inaan filmaanta weyn ka soo muuqdo aan danaynayo waxay dantii ugu qasabtay inaan magaalada muqdisho u soo hayaamo imaado oo xaggan maxaa la dhihi jiray yani aan nolol fursadeed ka raadiyo fursad aan ka raadiyo yani sidii aniga u noqon lahaa qofka aniga igu dhex jira هذا قف كيمي لكن قف كلا يود حجر مليون كلا يود حجرته مركب مليون تاسع سور هذه إنا هلا وأذكر إني جور جروب هذا كسر تقطع مجالك هلا ولالك هو إذا أبد لنا أو سهرين هو إذا أمادر كده أو سهرين إنا إمات أقوى هذا اللي ده واسكت بدن تاي هذا ناس قف كمركو قف كلا أم واحد كلا كل حجرو واحد كلا رادينيو مركز تو صوب حياة وحسمش إجواننا وتجاسد وفرصتي أيضا هيد أما فرصتي وحاس ماشي وكجار لها وتجا هدي هديت فاشون ديزاينر عن ربائنا النقضة موضة ربائنا النقضة جلاوينا ربائنا النقضة هدان له ستيل جارس أنفرديو محلي تري وحياها صقرا جارس يوم إيمانيا وأنا أنيق سورة سدو مركا حاجة وحياها كان أنتوا كفرصة بدنتها سوماليا كفرصة بدنتها بقول كيو بقول marka waxaas loo eego fashion designer hadda Nairobi caasimad weyn ah ma jiraan u malena dadka oo kala ajnabiga ah markii laga soo tago Kenyaanka Kenya degan markii laga soo tago ma jiraan gabdho fashion designer ah hadii jiraan weeyariin waa hal iyo laba wax la dhihi karo iskoolaha xataa fashion designer ka lagu barto ma jiraan xaga harqaan lagu barayaa fashion design iyo harqaan way kaliyin qofka inuu maro talo oo mara soo qeydado tishid ina fashion designer aan noqotido wax inta ku fikirsid waxaas iyo waxa samee inta isdhahayd aswirtid wixii asaga drawing sameeysid hadana pattern u bedeshid kidi markaas inaad tushid waxay u baahan tahay inaad cilmigii baratid laba dadka fursado way haystaan media laga baran karaa laakiin way adag tahay inaad media ka baratid waqti yar oo kooban ku baratid aad u adag tahay okay hay'adaha meesha joogo skills ay dadka siiyaan sida aad sheegtay hadda harqaanka ama kaamirada computer skills waxaas dhan adiga hadda fursad hadii lagu siiyo oo meesha ku laabato marjinaysa inaad ku laabato aad dadka barto fashion design-ka dadaab inaad ku laabato wallahi waa guriga fursad ka hesho ha horta xagga guriga hooyada markasta waa laabanaya oo xagga waa uurkaygi baa caloosheeda xagga taala because hooyada xag joogta marna ma ka maarmay inay aaday noqonaysa markasta laakiin hadii fursad aan helo hay'adaha aan fursad ka helo inaan dadka fashion designer ka baro
haddaan fursadaas lama diiday waa ku laabanaya xeryaha qaxootiga haddii se aan waayo waxyaabaha ii qorshaysan ay kamid tahay aan xagga haddaan dhaqaalo u helo aniga de qof dhaqaalo yeesha aan noqdo inaan xagga iskoola ka furo Gaaris oo kaleeto magaalo weyn waaye harqaan unbaa lagu bartaan gabdhaha harqaan ay bartaan dirac baatay tolaan iyo xijaab ka badan ma tolaan dhar ma design garayn karaan qof hadda marka ay yimaado adiga bakar ah oo mara aawadatid shaatigan aawadatid inta meel tolmo ka gashay inta meel laga jaray aniga waa garanaya laakiin marka harqaan bi soo baratay shaatigan ma garanaysid inta meel tolmo ka martay inta meel maxaa la dhihi jiray يعني كجر لهيد إنا باترينك إنا برتيد جرينك إنا برتيد وحياة صدق وقت بدن يكون قادر يقفك أدي هذا ما سنتهاي قنتي يقولان تكي برنامج كينا أيام كجرنا سده إسبدل يكو سمين كران لين يرضى كنول لداب رأي الدمر أنت أعظم با أديك فكر أهان هذا محاك أمس أنت لين يرضى سين لهد سده إسبدل كسمين لاين والله horta aniga waxa isdhihi kara hadii fikirkayga aan ku biiriyo dadka meesha joogan in ay sameeyaan kaliya maxallijo qof walba ku dhex jira qof walba meesha isla yareedada waa ku rumayn kartaa inuu meeshaas ayada u hayaamo hadii de qof kama sheegin aniga bufis iyo waxyaabaas niyada kaga jiraan inuu dibad aado waxaas niyada kaga jiraan ma garanayo laakiin hadii aad dream leedahay meesha dreamkaas ka heleed ama ka hirgelineed inaad tagtid waa tusaalahaan muqdisho fursado badan ayaa yaalo caqabadaheeda iyo fursadaheeda way isbarbar socdaan dhibaatadeeda iyo wanaageeda labadu way isbarbar socdaan marka ha isdhihin mar walba adi wanaag ma helaysid mar walba 100% wanaag ma helaysid qaxootiga hadaa joogtid de fursad la'aan la joogaysaa shaqo la'aan la joogaysaa waxa la joogaysaa oo kaleeto maxaa la jira gaajo iyo maxaa la jiray caqabado fara badan qof xirna tahay mar walba hadii laakiin ka soo baxdid meesha soo Muqdisho timaadid ama meel kale tagtid magaalooyinka Soomaaliya aad u weyn aad u tirbadan yihiin hadii fursad aad heshid inaad meesha ka tagtid oo qof de uu kugu dhex jiro kaleeto oo inaad noqotid qofkaas aarbtid meeshaas ayada oo ku hirgelin karin oo isartid aad meeshan meeshii hebelkaas uu ku dhalan lahaa maahan waa in isaga tagtid adiga waa lagu dhalay mar kale in aad is dhishida u baahan tahay هاديات أو dhaxal reebto aad noqonin dhedhe هاديات okay xasuusi dhadhaab maxaa ka xasuustaa dhadhaab horta wallahi waxa ka xasuustaa mataqaana waxyaaba weligay nolosheeda ay laawinin loo waxa jirta hal wax kamid ah laakiin sheegaya waa sir ku aanaysa dugsi quraanka dhigin jirnay moogtahay waagi dugsi quraanka aad joognay waxa dhacay marka waxaa sameyn jiray waxaa sameynaa subaxdii aroortii la soo aadayaa dugsiga casharka waa laga baxayaa xaafada lagu lahawnaa la soo quraacana la soo laabana fardambo waxa la soo laaban jiray moogtahay fardambihi markaan ka baxno yani markaan dhameeyno anaga casharkiina lagu lahaa iyo subaxii wixii markaan boogno ardayda intay loox la dhaqanayo waxa lagu mashquulsan yahay iyo wax sameyn jirnay dugsiga ka bixi jirnay aniyo team kale too 2 gabdhood iyo 3 gabdhood camal hadda waxa xasuusta gabdhiga ayaga maamo marka waxaa jirta keer ka shaqeysa and then waxaa jirtay guriga waxay keeni jirtay wax loo yaqaano bilana inta looga yaqaana bilan gabdhaha xirto always loo aqaana waxay soo gelin jirtay jikada dhiswaay marka gadaala ka baxeena kabaheen dugsiga uga tagna moogtaa dugsiga kabaha sababta uga tagayna ma taqaana kabahi mees xirana meel dheer ma jiraan la macallinkii iyo kabiirkii waxaan dhahan meel dheer ma jiraan dadkan way joogan ama suuli ama meel aad waxay soo qabsanaysaa dhaay moogta kabahii dugsiga ina xaafada aadin waa la ogyahay islaanta darbiga jikada intaan tagno bahalki soo bixino kaba ka dhigi jirnay kaas ku socon jirnay ilaa hadda ma ilaa waa xasuustaa wallahi ma dhaweyn waqti fog bay ahayd haddana waxyaabaha aan marnaba ilaawinay kamid tahay sidoo kale sheekooyinkii casarkii loo soo bixi jiray toobada la iman jiray iska sheekaysan jiray maalin waxaa dhacday gabar baa gaariga biyaha lagu qaadi jiro garanaysa ma gaari gacanka 3 caaga u saarnaa caagadaha weyn biyaha lagu dhaamiyaa 3 xaba u saarnaa lugta marka lugta inta saa u qaaday lugta kor saarto moogta saamid wiilo foodo badan oo isku xaafadna meesha soo maray xidhay ani waxa u maleynaa kula gabdhaha de lugta kor u qaadaan waxa calooshooda ku jirana dhulka soo soo daara marka sheekadaasna ma iloow maalinta wiilkaas uu dhahay waxyaabaha iloowinay kamid tahay
qaxootiga marba waxaa kugu soo dhalanaya ma ilaaweysid adiga xasuusta qaxootiga marna ma ka hariso ilaan waxyaabaha la xasuusnaado wax markaa yartahay wixii kusoo mar ma ilaaweysid maro 2016 wixii ka sokay hadda inay ilaawa laga yaabo laakiin wixii ka xageeyay caadi u xasuusana inay soo dhaceen camal u xasuusana aad iyo aad ugaas milyuun waa mahadsan tahay sida aan nooga aqbashay codsigeena inaa kasoo muuqato pagekeena ama youtube-keena channelkeena barnaamijkeena meeshaas ayaan kusoo xireynaa daawadayaal aad ayaa u mahadsantihiin intaan haddaana la soo gaarteen fadlan subscribe dhaha meel dheer gaarsiiya waxaa meeshaan ku casuumi rabnaa dhammaan ilidyada ama dadka haldoorada ah oo dhadhaab ka soo baxay dunida daafeeda meel walba ay joogaan intaa gaari karna waa keenaynaa insha allah aad ayaa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.